hooyo hodan Haarun Axmed Buuni waa hooyo ku nool magaalada Boorama. Hooyadan ayaa waxay la ildaran tahay xanuunka haleelay indhaha. Waxay ka soo jeedaa qoys dan yara. Hooyadan ayaa haysata 3 carruur ah iyadoo ayna jirin aabbo qaraabo cid ku wehelisa carruurta. Maamada ayaa waxa miciin waa carruurta ay dhashay. Iyagoo ah kuwa kaliya ee gacanta ku haya. hase ahaatee carruurta laftarkooda ayaa kuwaan miciin haysan maadaama ay daadoodu aad u yar tahay. Erayada murugada leh hooyada nafkeeda ka soo baxaya ayaa ah gurigu waa igu kiro 3 bilood ayaa la haystaa. Carruurtaydu 7 cisho waxba ma cunin iyadoo ay ka marakaceen jaarkeedii. Alle subxaanahu wa ta'aala waxa uu yiri markaad isku naxariisataan ayaana idin naxariisanaya. Hooyadan ayaa baaq dheer u dirtay cid kastoo naxariis ku jirto gaar ahaan hooyooyinka dareemaya dhibta haysata iyada. Ugu dambeyntiina ummadda Islaamka gaar ahaan Soomaalida dal iyo dibadba waxay ka codsatay inay ku caawiyaan qof kastaba wixii uu awoodi karaankiisa. magacaygu waa Hodan Haarun. walaalayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa in Ilaahay dartiisa ku soo caawiyaan waayo waxaan ahay hooyo indhahayga weyday habla yar haysata ninkii awlaad aniga dhalayna igaga tagay way ugu tahay marka walaalayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa in Ilaahay dartiisa ku caawiyaan waayo إلهي ما ينعد كراي مقال ما جرته وحي إلهي يقول كان قدر بيه لكن ببعض تذكري بس ليس أي قبضا مركا ولا الله هيك شرفت لو حنك السنة ولي بهويين كضمير كلا إن إلهي درتي وعاوية إلهي درتي إن وعاوية ما السنة اختلط ذلك هو اللي يقول وين كستانا أنا تجينا أول وهيل أنت بدل لكن أنت تجي وهو يقبل واي أنت كلا وحلي يقولي هالكم حلا كم تيدوا بني اللوبي لكن أنت واتكي أي قبضتي marka walaalay waxaan leeyahay Ilaahay dartii u soo caawiya hooyo Soomaaliyeed oo gurigan aad arkaysan ku nool isla markaana ay dhawaaqyadeeda iyo oraha ka imanaya iyo baahideedu ayna soo gaadhay jaarkeygana waa Hodan runtii waa hooyo haysata 3 carruur ah isla markaasina waa hooyo laxaadkeygii haysan shalay toole ayaan u dhaxmarnay reeraha oo aanu wuxuu soo ururnay waxay habeen iyo dhowr habeen ay cunaan waxaas kuma filna baahidooda